indhuhu wax badan ayay arkaan, laakiin maskaxdu waxay xasuusataa oo kaliya wax dareenka taabta. Qarni kasta waxaa jira dad bulshada u turjuma xanuunkeeda, farxaddeeda iyo rajadeeda, iyagoo aan hal eray ku hadlin. Waxay isticmaalaan oo kaliya qalin iyo midabo. Maanta oo ah maalinta farshaxanka adduunka, waxaan diiradda saaraynaa geesiyaasha qarsoon ee dalkeena, sidee bay qalinkooda ugu dhigeen hubka ugu awoodda badan ee wacyigelinta nabadda iyo ilaalinta dhaqanka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Yuusuf Rumaan. Magacaygu waa Yuusuf Rumaan. Barnaamijkan waa barnaamij bandhig farshaxan ah, maadaama maanta ku beegan tahay maalinta farshaxanka adduunka 15 Abriil. Waxaan isku dayaynaa inaan soo bandhigno wax kasta oo barnaamijka lagu soo bandhigayo, haday noqon lahayd farshaxankii, haday noqon lahayd ardaydii wax soo bandhigaysa laftooda, raggii farshaxanka soo agaasimay ee barnaamijkan qabtay, ilaa waxaa isla arki doonaa qof kasta oo barnaamijkan ka soo qaybgalay aragtida gaarka ah. Kusoo dhawaada, nala jooga ilaa dhammaadka. Waxaan rajaynayaa muuqaalkeena ka heli doontaa. Socod wanaagsan. Soo waxaa waaye farshaxankan anaga sawirnay marka meeshaan bandhigan maanta waxaa waaye bandhig yar oo aan ugu talagalnay inaan kusoo bandhigno maalinta farshaxanka adduunka ahaan. Marka arday iyo dad artistayaal inta way isku jiraan. Aniga iyo Forsi ayaa soo qabanqaabinay in mataqaanaa bandhigan saan quruxda badan u dhaco. Sawiradan arkaysid hadirtaan qaar ka mid ah sawiray, qaarna waxaa sawiray ardaydeeda. Sida kan oo kale hadirtaan wuxuu ka turjumayaa masaajidka Qudus. Kan wuxuu ka turjumayaa balambaalis ama qurux dalka. This one portrait painting waaye oo gabadha ka sawiray. Qof sax waaye, dimashida waaye. Kuwan maxaa la dhahaa kaasoo kale dhaqanka ku turjumaya. Kawan abstract painting la dhahaa sawir oo qurux ku turjumaya waaye. Marka sawiradaas ay ku badan yihiin maxaa la dhahaa, marka waa arki doontaa sawiro badan oo mataqaanaa arday badan dad badan kala sawireen, ayagana waa arki doontaa. ninkan waxaa la dhahaa Cabdullaahi Ciise, waa ra'iisul wasaare u horeeyay dalka. Salaam naxariiste. Sawirkan wuxuu ka turjumayaa culture-ka ka turjumaya sawirkan. Marka sawirkan sawir aad mataqaanaa asagana saameyn badan waaye oo qurux badan. Maxaa ku beddelaysan kan oo kale inaad samayso? Anaga sawirada waa sawirnaa, waan sii iibinaa farshaxano kala duwan, kuwana dhaqan ahaan oo sawirnaa, kuwana dadkaas soo dalbadaan commission. Kan muxuu ku beddelay marka dadka u soo dalbadaan inay samid u talgashay? waa sameynaa si loo sii gado. Laakiin hadda waxaan ugu talagalnay bandhiga inaan mataqaanaa sawiradan aan ku dhex sawiro, si mataqaanaa bandhigan uga qayb qaadano maalinta farshaxanka adduunka. Waxaa la taaganahay markaan agaasimaha mudane aadan ku soo dhawow bandhiga farshaxanka. Maanta maxay kaaga dhigan tahay ka soo qaybgalka bandhigan weyn ee lagu qabanayo Muqdisho? Farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan dhalinyarada Soomaaliyeed ee farshaxanka ay soo qabanqaabiyeen, taas oo lagu weyninayo maalinta farshaxanka adduunka 15 Abriil. Wasaarad ahaan iyo agaasin ahaanba waxay farxad weyn noo tahay in aan aragno dhalinyaro Soomaaliyeed oo intay isku tagaan iyagu si iskooda intay isku abaabulaan ay sameeyaan soo bandhigaan hibadooda ay u leeyihiin farshaxanka. Waana ku dhiirigelinaa mar walba garab baan u nahay haddaan nahay wasaaradda. Gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay. Inta joogtay maxay yihiin fursadii ugu waaweyn ee aragtay oo farshaxanka bannaan as leedahay dhalinyarada adhiileed meeshaas xoog hala saaro? farshaxanku wuu kala duwan yahay, inkastoo dhalinyaradu ay soo bandhigeen farshaxan aad u wanaagsan oo ay gacantooda ku sawireen, haddana waxaa jira farshaxan dhir la qorada kale, dhirta marka la qoro oo si farshaxan loo sameeyey baa jirta. weli maan arag intaan hadda ku dhex kormeerayay agabka la soo bandhigay. insha Allah waxaan rajaynayaa iyaguna inay kuwa muhiimadda leh inay ku soo biraan sanadka dambe haddii la yiraahdo. Doorka farshaxanku ku leeyahay nabadda iyo wacyigelinta sidee buu yahay? waxaa la yiraahdaa halkii farshaxan wuxuu u dhigmaa 1000 erey oo la isku geeyey. door weyn hal sawir baa wuxuu ka qaadan doonaa nabadiska buu door weyn ka qaadan karaa. marka waa halbool uu yahay baan odhan karaa. aad u masantahay agaasimo.
farshaxanku waa luuqadaan cod lahayn waa maxay fariintii ugu saameynta badneed aad weligaa sawirtay intaad farshaxanka ku jirta Cabdinaasir Kaan fariinta ugu saameynta badneed aan dhihi karo waa sawir waxaa waaye vision oo ka turjumaya muqdisho mustaqbalka say u ekaan lahayd xilli oo dagaal iyo burbur lagu jiro xilli dib u soo kabasho lagu jiro runtii sawirkaas waxuu soo bandhigay madaxweynaha wayna saameysay waxaanu ka hadlay in isaga nafsadiisa uu ray ahaan u arkaayo visionkaas farshaxan ahaan u bedelay runtiina waxay noqotay mid oo aad u taabato dareenka dadka markaad hor fadhido warqad maran oo plaanka ah oo cad maxaa waa wax kugu dhiirigeliya inaad sawirto ugu horeyso markii la joogo waqtiga artistaha waxa kugu soo dhacayo fikrado badan waxaa jirto sometimes waxa kugu dhacayo waxa la dhahay creative stack oo fikradaha ayaa kala jeclaysanaya laakiin go'aanka ugu dambeeya ee sawirayo waxaa waaye waxa uu dareenkayga igala sheekaysto ama dhibaato taagan inaan xal u sameeyo ama caqabad taagan inaan masawiro ama duruufo taagan inaan wax ka sameeyo ama se ficil u baahan in laga hadlo ama laga wacyigeliyo inaan farshaxno inta badan kee u baahan tahay badan waxa u badanaa visionka mustaqbalka wax aanan hore loo arag imagination khiyaaliga fictionka khiyaaliga markaad eegto bulshadeena ma isleedahay Soomaalidu waxay gaartay heer ay si buuxda u qadariyaan una iibsadaan farshaxanka way ku socotaa weli ma gaarin laakiin way ku socotaa waxaan rajaynaynaa inay gaarto dhalinyaro badan oo rabaan inay farshaxan sameeyaan qof waxa ku dhiirigelin maxna qurtan leh wallahi tan bilow fiican waaye waxaas dhihi karaa jaaniskan aniga ma soo helin laakiin jaaniskan way haystaan waxaa leeyahay ka faa'iidaystaan waxay haystaan dad dhegeysanayo waxay haystaan artistiyaal dunida la tartamayo waxay haystaan dad fikirkooda dhegeysanayo waxay haystaan dad ixtiraamayo waxay haystaan dad farshaxanka wax ka yaqaano aniga waqtigeena waxaas ma soo helin waxaa leeyahay ka faa'iidaystaan ha dadaalaan dadaalkoodina hesii laga jibaaraan aad ma saddex Salman kusoo dhawaad kanaalkiisa Fromaan oo ku faraxsanaa maanta inaad ka soo qayb gasho bandhigan maxay kaaga dhigan tahay markaa bandhigan markii labaad oo aan ka soo qayb galay waaye wax weyn iiga dhigan tahay sababtoo ah aniga mar kastaba dhallinyarada Soomaaliyeed ee talentiga leh eventyaashooda si joogto ah uga soo qayb galaa waa wax weyn waaye dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala gedisan oo wiilal iyo gabdho intaba leh inay farshaxan gacmeed ay soo bandhigaan waa wax weyn aad u weyn maxay ahayd inta joogtay farshaxanka ugu weyn ee ku soo jiitay zaid ku saameeyay farshaxano badan aan ka soo qayb galay muddada aan joogay meeshaan kuma soo qayb ku soo koobi karo dhalinyaro kala gedisan oo kala magacyo wataan hadda laakiin maanta waxaan ku suganahay maslax iyo dabaaldegiisa maalinka farshaxanka adduunka maxaa fariin u diraysaa dhalinyarada jecel farshaxanka waxaan leeyahay isku daya ka qayb gala dhalinyaro diyaar waxaa nii ah maantay macallimiin ah oo nagu taageeraya inaad sawiradaas aad barataan sawirkana marka la fiiriyo dunida Soomaaliya qiimo kale heen maahe dunida waa wax qaali u ka yahay sawirana waxaan soo aragnay malaayiin la kala siisanay sawirro waxaan aragnay bilyan gaarin oo niman caan ay soo bandhigeen Soomaalida dhalinyaro noocaas oo kala talent leh ku jira adduunka waxa soo maray Van Gogh soo maray Leonardo da Vinci soo maray Michelangelo soo maray Pablo Picasso soo maray intaba waxay aan farshaxan qaaliya oo sawiradooda malaayiin la siisto 300 milyan 400 milyan bilyan ee marayaan qaarkood sawiradooda ay marayaan marka sawiradan maanta dhalinyaradan ay soo bandhigeen tomorrow waxa laga yaabaa naga 20 years 30 sano ama 50 sano soo socdo qiimaha hadda ay taagan yihiin inay kor uga kici doonaan insha Allah anagana saas rajeynaa idinkana saas aan rajeynaa ayo ma santahay waxaan weli gudto ugu jirnaa barnaamijkeennii bandhiga farshaxanka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho markan gacanteeda mid waxaa taagan ismahan oo kamid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay barnaamijka bandhiga farshaxanka oo maanta lagu qabanayo magaalada Muqdisho soo dhawow sidee warta barnaamijkan maxay kaaga dhigan tahay bandhiga waa dhawaha Yuusuf magacayga ismahan waaye waxa ahay content creator ama muuqaal sameeye waxaad ugu faraxsanahay bandhigan runtii wuxuu iga dhigan yahay yacni waxay muujinaysaa artistka horumarkuu sameeyey sanadihii ugu dambeeyey ilaa heer la gaaro maalinta artistka in la qabto bandhig noocan oo kale oo dhalinyaro badan ka soo qayb galaan waxaani isleeyahay artistka waa waxyaabaha ugu badan ee soo celin doono sumcadda Soomaaliya ee luntay in ka badan shidaalka misleedahay nabadda iyo horumarka qayb ka qaadan kara farshaxanka sidiisaba wuxuu ka tarjumaa nabad
nolol iyo yacni waa luuqad lagu muujiyo sawir aad u mahadsantahay Ismaaciil. adigna sidoo kaleeto waa mahadsantahay Yuusuf soo dhowo السلام عليكم مقعي وسام إيمان أو مقع دير آلتو وحنا فيلم ميكر كترسن بعد مسرح ما أنتو حاجة بندق أما ومالين تا فرشان كادونكا وكواك فرح سنة إن أنت جو صاحب بدي يدنا أرتستيال واي مركا أنيو أرتست قيوا كجرا مدام فيلم ميكر هاي فرحة إيتا إنت أنا خود مدرس كوي مادينا خيب كهاي madaxda sharafta leh الجار على وفير بلاد وصوّد قادنا فيري نكان بلاد الصومالي نكو خاذا واي هل حسنا هذا لو كنا تي لحدة صدق سنة كذب وحبين نكون دون تعال سنة كتب سماه يس waxaan ku faraxsanahay inaan halkan isla soo gaarnay guntii gunaanka barnaamijkeena waxaad daawateen bandhig farshaxan oo maanta lagu soo bandhigayo magaalada Muqdisho runtii wuxuu ahaa bandhig cajiib ah oo aan ka aragnay farshaxan fara badan sawir fara badan oo qurux badan halkan lagu soo bandhigay waxay ahayd wax qurux badan anihan iyo Yusufaan aad soo jiitay dadkii ka soo qayb galana ay ka heleen runtii dhalinyaradu farshaxanka sameynaysan ayagana laftooda dhiirigelin u ahayd maadaama hal abuurkoodii hibadooda ku dhex jirta ay halkan ka soo bandhigeen tan iyo kuna keen daba waxaan ku ogahay in dirjeynaya nabadii horumar oo walaakiin wiilkii Yusuf Maxamed Yusuf Roman nala jiro nagu caawiyo subscribe mahadsanidin